markaasuu ugu dhawa ogtahooran xaasan qabaa iyo ciyaal adoo iga maqan hadda ehelka makaa dooni kari laakiin sheekada inaa hoosus noogu dhigtan u baahanahay kugu iriye inan yahow aday oof wareemo jacaylkan abuurniyo ma iloobi wacadkii waa amar ilaahay anoo aadmi ku jecel inaan kala irdhoone arrinkeeniyow maqan haddii aad ogaalayd sidaan adiga ku ahay kalgacaylkan awga inaan ku ildaranahay indheergarad haddaad tahay marnay maadilowdeen. asalaamu calaykum bahda ayaa nolosha waa idin salaamay magacayga waxaa la dhahaa qadro waxaan ku noolahay wadanka sacuudi carabiya aad ayaad u mahadsantihiin bahda ayaa nolosha oo ii suurtageliyey inaan idinla wadaago qisada igu dhacday qisada oo dhabna tahay qisadan sidaan ayay u dhacaysaa anigoo wadanka sacuudi carabiya muddo 3 bilood ah oo sugan ayaan waxaan isbaranay wiil muqdisho joogo ayaan waxaan iska baranay social mediaha markaan iska baranay wiilka waan xiriirnay walaaltinimaan isku baranay awalan marka ugu horeyso markaan isku barano walaaltinimada ayaa maalin wuxuu igu dhahay sawirkiisa uu ii soo diray markii uu sawirkiisa ii soo diray waan arkay markaasuu igu dhahay sawirkaaga ii soo dir markaasaan dhahay aniga sawir maba galo saas miyaa ugu dhahay adiga wiilkii miyaan isku macsanaameenay muddo markii ay kasoo wareegatay ayaa maalin waxaa dhacday inuu shukaansi ila soo galay xiriir anigana waan ka diiday markaasaan waxaan ku dhahay intee degan tahay camal markaasuu wuxuu ugu dhahay muqdishoan joogaa xaafad hebel ayaan deganaa ayuu ugu dhahay markaasaan wiilan eed u ahay aniga ayaan intaan ku arkay yacni meesha aan iska kala xiriireyne markaasaan weydiintaan gaar u warsadaan ku dhahay hebel makase markaasuu igu dhahay hebel waan kasaa oo heblaay ayuu qabaa markaas baan aan shib ka dhahay markaas isoo raadiyey wuxuu igu dhahay xiriiran ayaan u baahanahay markaasaan dhahay aniga xiriir yacni misla wadaagi karno markaasaan dhahay xaaskaaga ka waran markaasuu igu dhahay yacni xaas ma qabo markaasaan ku dhahay maxaa caruurtaada iyo xaaskaagane markaasuu igu dhahay ma qabi caruur iyo xaas ima joogto waa la joogay muddaa kasoo wareegatay maalin maalmaha kamid ayuu haddana xiriirka ii soo bandhigay haddana marataani waan ka diiday muddo kasoo wareegatay 1 sano ayadoo 1 sano laga joogo ayaa maalin waxaa dhacday inuu isoo waco uu igu dhaho yacni marka awal waa iga walwali jiray markasta waa isoo raadin jiray muxuu dhihi jiray xaaladaada ka waran intee joogtaa ma soo bixi rabtaa ma meeshaada joogi rabtaa haddii haddaan dhaho muqdisho usoo socdo wuxuu dhihi jiray walaalay meeshaada iska joog aad iyo aad ayaan iskugu fiicnaanay sheekada xiriirkiina waan iska afmeera waan ka diiday maalin waxaa dhacday inuu adiga wiilka aan isku fiicnaano maasha allah isfahanay walaaltinimo isku fahanay si walaaltinimo isku qadiranay maalin maalmaha kamid ah ayuu wuxuu ii soo bandhigay jacayl ayuu ii soo bandhigay inuu xiriir aan suubsan oo dhab ah anigana waan ka ogolaaday waxaan ku dhahay maafi mushkil aan ku dhahay xiriirka ii soo bandhigatay waa ka aqbalay waxaan laakiin aan u raaciyey aniga waxaan dhahay hebelow aniga yacni xiriirka ii soo bandhigatay maafi mushkil waan ka aqbala laakiin hal mid aniga maanta qof macnaha oo shukaansata maahi qof oo niman yacni xiriirsana maahi laakiin haddii adiga aad go-aansatay inaan xiriir aan kula suubiyo maafi mushkila laakiin hal mid ayaan kaa codsanaa halka mid ay tahayna yacni aniga dabeecad ayaan leeyahay dabeecadda aan leeyahayna waxaa waaye yacni ani qofka aan isbarano ilaa iyo nihaayo inaan isla socono ayaan jeclahay oona intii aan ka gaarayno guulana aan qof walba qofka kale oo si fiican usoo dhaweeyo
wuu iga ogolaaday balan iyo axdi aan isla galnay inuu isaga dhankiisa aan naga gaabinayn aan dhankeyga gaabinayn weli waxaan u daba dhigay hadda haddii aad yacni aad jaceylka oo yacni soomaalideen waan ka saa xaaladooda jaceylka yacni sanadadan jiraan waa qawda maqasho waxaan u qaban anina ma doonaay in aan waqtiga kaa dhumi ana iga dhumis ma doonaay laakiin mid suubi aan dhahay haddii aad jeceshahay inaad yacni intaa inta tijaabisid oo ila sheekeysid haddii aad jecel oo dhowdina aad intaa jecel ugu iga bixiysid yacni hadda aniga adiga dad walaalaa nahay walaaltinimadeena hanooga dheel ayaan ku dhahay markaas wuxuu igu dhahay ma dhaceyso anaa ku jecel anaana ku rabo intaasaana kaa dabaroorahay sabraadada kaa codsa igu adkaysay haddana wax kasto yacni anigaa diyaar ku ah mana ku siraayo mana ku qiyaamaay marka wuxuu dhahay aniga ma ku qiyaamaay ballan waaye sidaa ani adiga ila wada ayaan kuula wadayaa mana jecli inaan ku siro kuna qiyaano maafi mushkilaan dha anigaba yacni soomaalideena oo dhan yacni gabar oo yacni ma ihiyaan dhaha oo qofkii la arkay iskala sheekeysato waqti lumisna ani ma jecli haddii aan sheekeysano inay sheekada iyo wax kasoo baxayaan ayaan jeclahay adiga ani isii waan isfahanay waa wada hadalnay khalaas way isku dhamaatay maarka bil ramadaan ayaana soo gashay markay bil ramadaan soo gashay ana qof qadaama oo weeradkeeda u shaqeysan ahay markaasaan waxaan ku dhahay ramadaana la soo galay ramadaankina maalintii oo dhan yacni gurigaa la iska jiifaa habeenkaa la shaqeeyaa marka waan u sheegay sidoo yacni oona iiga walwalin oona yacni hadhowdii sheekadaynana ay kala oona soo gaarin waxaan ku dhahay maxaa talahaan dhahay aniga qof qadaamahaan ahay maalinta dhan gurigaan joogaan dhahay habeenkii ayaan shaqeeyaan dhahay bacdil maqrib marka wuxuu igu dhahay maafa mushkila adiga waxaa dhacday uun inuu wiilkii aan isla soconay heer wuxuu gaaro oo shaqadiisa oo yacni oo jiifto goobta shaqada oo jiifto aniga daraadeyda oon yacni oon muxuu ahay sida aan isku xilno ilaahay ma ku darnaadee habeenkii shaqadeeda iska aadi jiray doobadi wuu isoo wacaa haddii aan shaqada jir kusoo daaho wuu isoo wacaa ku aaway oo ku socdaa ku dhihi jiray habeenkii markaan shaqada ka imaado 6 saac ka imaan jiray shaqada 6 saac markaan ka imaado isna qadka igu diyaarsanaay sheekadeena meesha kasii qabsan jirnay 9 saac markii oo 9 saac markii la gaaro oo xilliga suxuurta aan kala tegi jirnay marka adiga wiilka maasha Allah waa isfahanay waan isjeclaanay aniga hatay hortiis jeclaaday maasha Allah tabaarakallah waa anako sida nahay wiilka adiga soo jiidasho badan oo ugu soo biye heer wuxuu gaaro oo salaadii subaxdii telefoonkiisa oo iiga kaciyo maasha Allah kalsooni badan aysa siinay waa isfahanay waan sheekeysanay iyadoo saas ay tahay oo habeenkin oo shaqada oo jiifanayo habeenimo xaafadiisa oo hayna habeen shaqada oo jiifana calaashaanigeyga oo joogi jiray marka waxaa dhacday adiga muddo haddii aan xiriirkeena kadib markii muddo adiga haddaan isla soconay 3 bilood ayuu wuxuu soo bandhigay guur camal ayuu isoo bandhigay markuu guur isoo bandhigay oo ugu dhahay intuuna guurka isoo bandhigno wuxuu ugu dhahay yacni ehelka ibar maafa mushkilaan dhaha hooyaday gabar saaxiibadeydaan baray ehelkaygay u geysay way soo bartay hooyay soo bartay iyo aabay soo bartay way isbarteen walaalahay isbaray oo muqdisho joogaan maasha Allah tabaarakallah waxaa dhacday hooyay xijki soo aadaysay hatii way isu soo barteen marka maasha Allah tabaarakallah adiga hooyaha safar soo galay markuu safarka soo galay wuxuu ii dhahay yacni waxaan rabaa hooyo haddii ay ku timaado intayna ku imaano hooyo waxaan rabaa inaan sheekada noo dhameyso oo aan adiga isguursano anigana waxaan ku dhahay yacni maafa mushkila laakiin aniga waxaan dhawaa maqanahaan dhaha adina meeshaan muqdisho joogtaan dhahana meeshaan jooga laakiin kuley maafa mushkila wax kastana khayr inoogu dhamaana iska sabar hadda hooyaa safar soo galooso insha Allah mar alla markii hooyo ay timaado aan hooyo wada hadlaynaa wax kastana khayr inoogu dhamaanayaan adiga wiilka wuu iga ogolaaday haddii oo iga ogolaaday
waxaa dhacday hooyo way imaaday, hooyo waa is aragna maasha allah. muddo hadii la joogay waxaa dhacday in yacni hooyo ay laabato. intii hooyo laaban wuxuu ugu dhahay sheekadayna yacni waxaan rabaa aniga ehelka kaama doonahay, laakiin horta marka uu dhahay yacni waan isguursanaynaa, qaabkaan isku guursanaynana iima sheegin, ima dhihin ehelkii ayaan kaa doonanayaa, imuuna dhihin. adiga markii hooyo imaaday, hooyo laabatay, markaasaan hooyo markay tagto Soomaaliya wuxuu ugu dhahay hooyo way imaaday, koley waxaan rabaa sheekadii qadro inaan noo dhamayso camal. markaas waan fikiray qofka waan jeclahay, anin wadankan ma joogo, Muqdisho la dhahayo wadan kale ayaan jiraa. waxaan ku dhahay adiga waan fikiray, ani ninkana waan jeclaa, isna wuu jecel yahay. waxaan dhahay khalaasaan dhahay, waan kasoo fikira ahaan dhahay waan noo dhamaanayaan. adiga waa habeenay igu qaadatay fikirka, habeenka ku xigo soo bandhigay. waxaan dhahay khalaas waan kasoo fikiraan dhahay, mafa mushkilaan dhahay, khalaasaan dhahay ehelka u tag. markaasuu ugu dhahay aniga ehelka inaan u tago ma rabo, waxaan rabaa sheekadayna inaan gaabagaabin noo noqoto oo anida nagu koobnaato. waxaan dhahay adiga yani ani ma jeceli aan dhahay inay kaligay noqotaan dhahay, aabaheeya nool, walaalheeya joogaan dhahay, aniga ma ihi qof kaligeed yani tashata ma ihi aan dhahay. maanta haddii ay ugula sugnaan lahayd wadanka aan ku sugnahay wax waliba way ii suurtageli lahayn, laakiin qof waxaan ahaan dhahay yani oo hadda ehelkeedaan dhahay Muqdisho joogaan, ehelna u joogaan dhahay, adigana ehelka aan Muqdisho kula sugan tahaan dhahay. marka aniga kaligay ma awoodiyaan dhahay sheekadaas, laakiin ani midaan kuusoo bikirahana inaa ehelkeyga iga doonto 6 saac maalmeedna aa ehelkeyga qanciso. markaasuu ugu dhahay waa ogtahoor aan xaasaan qabaa iyo ciyaal, adoo iga maqan hadda ehelka makaa dooni kari, laakiin sheekada inaa hoosos noogu dhigtaan u baahanahay. markaasaan ku dhahay sheekada hoosos ani ma u dhigi kari, laakiin ehelka u tagayso u tag. ayadoo saas ay tahay oo isla markii wuxuu suubiyey inuu saanta iga reebto. saantii uga reebto waan arkin saantii iga reebtay. markaasaan waxaan ku dhahay maxaa kugu dhacaan ku dhahay. markaasuu ugu dhahay maya lama habeen oo qadka ka maqnaaday. markaan dhahay ehelka u tag, haddii ay ehelka u tagtay okay waa ehelka daa iga doonanayso oo yacni leefka leef ah walba u dhamaynaysa waan u kala karaa, laakiin hooso gaabagaabay ani ma geli kari aan dhahay. haddii ay gaabagaabay noqonayso anaa ku imaanaa, iska sabar, bilhebel ima u dhabilna ii qabaan eray, bilhebel iigu imaawna ii dhahaan dhahay. markaas haye khalaas marfa mushkil hoo dhahay, waa wada ballamayna, dhibna ma laho. waxaan ku dhahay waayahay ayadaas ee noo tahay. waxaan arkay isagoo qadkii ka maqan. ninkii ani oo shalay subaxdii salaad telefoon iiga kicin jiray oo isoo xariir jiray 24 oo qadkii iga soo raadiyay, haduu qadkii waa telefoon caadi iga soo wici jiray, maanta haddii oo qadkii oo ka maqan yahay telefoon caadina aan laysoo diraynin, jaa waxaan ogaaday yani inuu kastoo xoogaa hoos u dhacay sheekadiisa dhan. waxaan ku dhahay maxaa ku daaraan ku dhahay, sidee wax u jiraan, dib u dhacaan yimin muxuu yahay. adiga wiilkii soo ii dhahay wax ma jiraan. waxaan dhahay wax jirnaan dhahay, maxaa keenaan dhahay lama beri ina ani aad yani iga aamustaan dhahay, oo qadkina aadan soo gelin telefoon caadina aad haddii aan kaa soo wac lama heli karaa iga saartay, sidee wax u jiraan aan dhahay. markaasuu ugu dhahay wax jira wax dhan ma jiraan wiil, caadi waaye. adiga sidaa aan yani aan warkiisa u qodqodahay. marka dambe waxaan ka keenay aniga maxaa walaashay waxaan go'aansaday yani walaashaa ha kalifinaa is dhahay, guurkiina waa iska dhaafay. yani haddii aan sidaa raba ii soo bi weysay, yani maanta ani ma ihi qof yani oo ehelkaaga intuu tagto oo 6 saac camal ku guurso karto. ani xaasaan qabaa inaa ii naxariistaan raboog naxariiska ii fuuriso ii fiiriso oo hoos waxeen aan u dhamaysano. xataa mid soo aabi ani xataa aan isla ogaani sheekada iyo adiga 3 din anagu koobnaato. adiga waxaan dhahay yani ani laba maada mid adiga kaa filantahaan dhahay, yani inaa aniga iska keysugtaan dhahay, buu adina ku jeclaa adina ajeexshaan dhahay, inaa iska keysugtaan dhahay iyo inaad yani aad ehel ku tegaysaan dhahay. allaba kul baan dhahay yani haddii aan ku imaado soo ma aroosi lahaynaan dhahay, naagtaadana wali ogaama lahaynaan dhahay, yani qarsood may noqon lahaydaan dhamay kasaas kasoo qaban dhahay.
aysan een waxaan dhahay iska sabaraan aan waa ii jeed ahana maanta nimaan adiga ahaynan dhahay lama socdo asigaba uu ogaay nimaan asiga ahaynan la soconin maanta inaanan xawaahay niman kale aan la hasaabeynin asiga bisle aan telefoonka daan furo asiga kale aan la hadlaayo hooyadii haddii aan la hadlito intaan u sabiraan u diri jiraan dhihi jiray hooyan la hadlooba haddaan walaalkii la hadlaayo oo u sabirin jiray qofka aan la hadlaa magac iigu qoran uu arki jiray qofkaan la waramayo waan u sheegi jiray waan kama qari jirin ayadoo saas ay tahay waxaa isii dheerahay walaalahay la dhashtay waxay dhihi jireen ninaa qabo maxaa kuu geeyey ninaa qabo may ka leexatid laana waxay u jeedaan 24 indhaan iska ahayn malihi habeen isi maalin isiga yani maanta shaqadantaan jiro isigaan ka walwalaa habeenka daan guriga imaadane isigaan telefoonka intaan ka waco aan yani waana lagu adami jiray habeenkii yani salaada fajirkaana lagu adami jiray anagoo sheekeysanayno walaalahay dhihi jireen maxaa ku daarad ninaa qabo maxaa ka rabtaa iskama dhaaftido markaasaan ku dhahay yani caadi waayaan ku dhahay naagtaba haddii ilaah ula qoran lala guurso waa lala guursanahaan dhahay aanna maka xumiyaan dhahay maanta inkastoona jeclaa jiran ninaa qabo laakiin hadda go-aankayga ugu dambeeya wuxuu noqdaan dhahay inaan ninaa qabo aan guursado waana ku faraxsanahaan dhahay haddii ooba ogolaanahayo walaalahayna waxay ugu dhaheen sidaa jeceshaa annagana kula jecelnahay sidii walaalahay iyagaga hereen sheekadooda ayadoo saas ay tahay marka waxaan dhahay maxaa kugu dhac markaan dhahay ugu dhahay abaayo go-aanan gaaro go-aankaasoo oo hadda go-aan yani saa-idna ma gaarin oo hadda yani ma kala goonin go-aanka laakiin walaashaada ha kalifin adina xaaladaada xaal waay saxaabul ciyaala iska tahay yani aan isdhahay waxaan dhahay shalay markii aan adi lugtaada igu soo raadinaysaan dhahay soo asxaabul ciyaal ma ahayn waxaan dhahay nacam waaye shalay markaa jecelkaa iisoo bandhigaysaan dhahay hoolihii ku haysan jiray shalay hoola kadib maa dhex gashiyaan eri shalay bartaan kugu bartay aa dhex joogtaan dhahay xaasi ilm inaa la heedaan dhahay waan ku ogaayaan dhahay waana kaa ogolaaday anoona dooqayga aynan ahaynin naha qabo haddana wax walba inay qadirta tahay aan go-aansaday ilaahan iska aamin ilaahan iska tala saartay ayadoo saas tahay maanta haddii aadina go-aan gaartay oo isoo dhahday yani saasaan jeclaaday hadda ma kasoo laabi kartaa handha mase khalaas waan dhahay khalaas weli waa kasoo laabtay markuu saas i dhahay waan ku farxay waan soo dhaweeyo isku soo dhawaanay muddo haddana isla sii soconay haddaan muddo isla socono waa kana haddana wuxuu bilaabay haddana inuu yirahdo haddana abaayo ima ehelka wuxuu ahay qadroy ma hadda arrinteen noo dhameysid aboowaha xatii wiil walaalkaya wadamadaas jiro aboowaha xatii ma noo dhamey dhahdid adiga waxaan dhahay walaalo istijiyaan dhahay wax walbana siduu ilaahay ka dhigay noqonayaan dhahay waxay walbana way qoran yihiin aan dhahay marka waxaan dhahay iska sabaraan dhahay sabarka wax ka fiican ma laha iska sabar anna waan sabra kule aad igu baahan tahay kadan ani ayaa kugu baahanaan dhahay waan isku imaan doonaa kadib waxaa dhacday adiga wiilka inuu agajiid haddana ka dareemay inuu xogii oo telefoonka oo iga dansado oo iga qabo waayo haddii aan waco qadka soo galeen inuun ila hadle oo yirahdo mashquula ahay saana ahay fulaana ahay adiga waan u sheegay dhan kastaan ka mar waxaan ku dhaha walaalooga caliyo yani jaceylkan hadda aniga adaa ila soo raadsataan dhaha maantana haddii aad ogaataan dhaha wax alla wixii aan qabo markaad ogaatay miyaa go-aansataan dhaha in aani igu dhedheeshinana sida ilcaabkii camal markaasuu igu dhaha maya kuumina qoori ayadoo saas ay tahay oo sida iskula soconno waxaa dhacday maalin maalmaha kamida inuu yani go-aan kala haddana gaariyo go-aankaasoo shimaad ii imaaneysaa bil hebel i dheh waxaan dhaha maafi mushkilaan dhahay waxaan ku imaanahaan dhaha muddo adiga 3 bilood kadib waan ku imaanahaan ku dhahay waayo igu dhahay ayadoo saas ay tahay waxaan arkay wiilkii oo haddana hadda yani habeen oo ila hadlaa habeen oo iga aamusaayo qadkiis waxdii yani salaada fajirka waan jiifaa moogtahay salaada fajirka markii oo la gaaro waa jiif habeenkiisa u seexdo yani markii 4 saac aan jiiftaa 4 saac markii aan jiifto salaada fajirka waa iska jiiftaa salaad markaan tukado waa iska kasii naqsadaa waa iska jiiftaa qadka waa iska kay furan yahay qadkii soo galaa salaamu calaykum oo isoo qala qadkii soo xiranaa saan markaa jiifka soo kaco telefoonka maraan soo qabto
qadkii waa ka maqan yahay. salaamu calaykum xabiibti sahlan lee soo qoray khalaas meesha qadku wuu xiray. ana waa u sheegay waxaan ku dhahay yani qadkan haddii aad soo gashaa ka bixinana ilaa ani aan kaala soo hadlo haddii kale ii sheegaan dhaa meel alamaha aados aan mashquul daa tahay iisoo sheegaan dhaa waa ogtaan ani 4 saac oo suuxuna shaqaan aadahaan dhahay waa ii ogtaan dhahay qof guriga fadhida miyidaan dhahay miyihiyaan dhahay marka subaxdii aad qadka soo gashaan dhaa telefoon caadi iyo sadar wardada waan ka kacaa bes adiga xilliyada hore telefoon iyaga kicin jira hadda waa kana waa isbedeliye wuxuu keenay inuu telefoonkii ooba qadkiina oo iga waxaysto oo yani qadkiinta soo geliyo lamado eray dhahay iska xirayo anigana markaan soo kaco aan fiiriyo ma ku jiro telefoon caadiyan ka waca miiga qabanayo 4 saac dili gaaraan baxaa shaqadeeda aada qadkii wuxuu soo galaa 6 saac ama qadka soo galaa 6 saac gurigan joogaa oo may qof maqdaamo iska maqnaan ahay waxaa dhacday adiga maalmaha kamid ah waxaa dhacday maalin khamiis ah waxaa dhacday walaashay sooneed aan afuri waxyaabo u diyaarinayay sawiraadu iga sugayay sawiraadii wuxuu ahay anaa u diyaarinayay gabar walaashayna afur ayaan u karinayay inuu intii isoo waciyay aan isugta aan ku dhahay oo ka xanaaqay qadkii dhan wuu xirtay habeenka dhan qadkii ka maqnaay maalinta kale subaxdii qadkii ka wada maqnaay fariinyaal u qorqoray ma leysoo jawaabo qadkiis waa ka xirnaay adiga maalinkaas shaqo waxaan lahay ijaasaan lahay ma shaqaynayni maalinkaas asiga inaan baxo qabiya xilliga aan shaqay jiro si uu u qiinay waa baxay oo isiro qadkii furtay markuu qadkii u furtay fariinyaal aan u dirdiray iyo sawirad kuweyga oo iga sugay aan u dirdiray oo aragay fariimihii iga soo jawaabay oo raali gelis raali noqo shan anina mashquul taa waa ku fahmay yani meelaan aaday telefoonka meel ugu tagay adi uun wuxuu rabo isoo qorqoray oo isoo qorqori tago adiga maasha Allah waa ka aqbalay ilaana ana qof wax jecel ah wax alla wuxuu igu qanciyay yani waa iska ayidi jiray ayadoo saas ay tahay haddana waxaa dhacday inuu haddana xariirka haddana dib u sii qusmaayo anina muddo 3 bilood aan ku balanay inaan 3 bilood markii aan igu dhamaatay inaan u imaado wadanka aan kusoo laabto haddii qofkii oo hadda anisaan xagajid igu haayo oo yani oona igu soo socono hilow iyo qabin hamuun iyo qabin waa ku rabaa bilhebel imoo balan iyo axdi aan ku wada galnay waa dhan kastana aan waaniye aan dhahay yani telefoonkan kaaga yani xilliga aan ku baahdo yani ku weynin waxaa kaloo ku soo hortay maanta 12 oo isoo waca matalan markuu isoo waca aan sheekeysano waa ismaac salaameen ana shaqaan leeyahay kale hay shaqaan u socdahay ila hadalaan dhahay markaas uu dhahay mashquul ma taa qaas ma fi mushkila waan ka tagay anigoo xanaaqsan oo ilaahay og yaa sida xaaladeyda ay marayso ayaan ka tagay mar alla markii aan ka tagay habeenkan imaaday maanta aan hadalkiis u baahan qofkii aan yani ka tagay anoo hadalkiis aan u baahan qofta maanta ka tagtay caawad inaad raali gareyso oo hadalka shalay saaka ay ka weysay laba jubaarkeed inay ka hesho soo ma fiicno habeenkii haddana waa kana maqribadii shaqada ka imaaday sheekadana fariin oo qoraa 1 saac kadib uu isoo jawaaba anigoo ogsoona inuu 4 saac oo shaqada ka hooyaado mar 5 saac oo ka hooyaado habeenka oo shaqada oo naseexanaynin yani gurigiisa oo aadayo inuu waqtiga oo ilaaliyo ana oo isiyo yani waqti kadibna xaafadiisa oo iska aado yani aan jeclahay mar alla markii oo la gaaro muddo 4 saac saas tan aan dareensiyo aan hoogo waxa ku xisaabtantaa inaad qof buxuus aad tahay ila soo hadal mar alla markii aan dhaho on dareensiyo wuxuu igu soo xijinaa mihii aan ka sugayay reen iyo qosol iyo farxad waxaan ka warhelaa fariin ay xariirtu aan baxee maxsalaam habeen wanaagsan waa inuu biri aroorti oo isoo qoraa niyada jabaa igu sii dhacayo markaasaan habeenkaas calaacal iyo adduunyadii aan qababiciha mar alla markii aan waxaas u diro waaga doobare raali galayn oo isoo dhiiba iyo raali anaa qaldan saan waaye meel kasta qaladkiisa meel kastaan tusay haddii aan go'aansaday inaa wixii qaladada nagu jiro aan iska saarno aan dhahay isigana oo ina hayi dhaho haddana balantii oo iigaga buxo habeenka dambeeyo waxa igu sii ducoo dismoraalka iga sii jaboobo waxaan dhahay qofka ku jeclan waa ilaahay aan dhahay saanaan iiga dhowsaa sidee u jiraa waa iska xal adduun iska sabar
si haddaan u fiirsho yani qofku waa ijeceliya oo waan ugu jeedaa, laakiin wacadki ma adka yaqaano. wax alla wuxuu iisoo qoro waxaad ka dareemi qofkan isma dheheyso qofkaana neceb oo hal saac neceba kuuma qabo, waa la dareema qofka ku jecel laano soo dadkiisa iyo yani fariimihiisa ayaan ka dareemaya wax alla wuxuu ii qabo bes. laakiin wacadka adkee yaqaano, ballantii iyo axadkii aan galno ma kasoo baxaayo. waan u sheegay waxaan nahay bini-aadanaan nahay, wax walbaa dhici karo. adiga waxaan dhaha daadan jaanis ihiin abaayo jaanis kuma haya idheh ma fi mushkila. haddana waxaan usii raaciye ani waxaan dhaha waxaa u maleeyahaan inaan isku kaa qasbo baan dhaho adiga aan raji iga lahayn. wuxuu go-aan ku gaarabo inuu idhahayo aniga haddaa igu kaa qasda isku kay qasbayso mar horaan kaa faraxan lahay, ana waa ku jecla aadna waa jeceshahay khalaas. wax walbana way gudboonahayaan, wax walibana way gudboonaanaya sidoo alla ka dhigayna noqonaysaa. ayadoo saas ay tahay haddana waxaa sii raacsan in oon wacadki oonan adkeyneynin, oon wacadki oonan ku taagneyn. mar alla markii aan telefoon ka waco oo kale yani qofka bini-aadanka waxaa lahaa mashquula ahay saana ahay yani saas ay haysato waxaa lahaa maba kusoo dhahayo horay qadkiisa iyo wixiisa oo u xiranaa. ilaahay makuu darnaadee waxaa dhacday qofka bini-aadanka kaasamaha caawa camal wuxuu dhahaa caawa qadar shaqadan jooga ogaaw oon farxaa. waxaan dhahay shaqaan beri leeya ma ka fikiraay beri 4 saac shaqa laga rabo 3 saac inaan kaco 1 saacna isku diyaar gareeyo ma ka fikiraay. waxaan ka fikiraale cawada 9 saac ma kala tegaysiin masalaada markaad joogtaa kala tegaysiin hadalkiisa sida aan uu humuun ugu qabo waan farxaa. cashada iyo waan iska karnaa ciyaalka oo ciyaal habrar ah marka meesha joogaan hoosh waan iska kala boobsiinaa. telefoonkan soo qabsanaa waxaan la soo fadhiisanaa meel daldalankeena galna aan rabo waxaan ka warhelaa in oo telefoonka uu yiraahday cishaan iska baxaa isug. mar alla markii oo yiraahday cishaan iska baxaa isug yani aniga oo sugaayo in aan waayo oo telefoonkana qadkan oo iska furna telefoonkana qofna ayna ii rudinaynin waan wacaa qof miiga qabas fariinaan qoraa whatsappkan ka wacaa facebookkan ka wacaa meel kasta aan garaaca wax ii soo jawaabayo ma laho. 2 saac markii la gaaraa iska seexanaa. subaxdii waa kan raaligiina la soo diray raali noqon telefoonka waan ka hurday khalaas dhib ma laha isdhaha qadro iska sabar kulley sabarkaaga wax ku heli doontaa ayadoo saas ay ahayd haddana habeen kale haddana waa kana qaladka kasii daran anagoo ballansan oo haddana dhaha caawa meeshaan seexdo waa ogaa wiila soo wacaayo waxaa dhaha soo baxi raac meena ahdeenaahey anigoo isiga aan sugaayo oo wiilkaas raaca telefoonka laheega qawmaa markii 6 saac la gaaro qadka qartaba la siistooba qofka aan sugaayo telefoon caadanka waxa uu dansan yahay. ayadoo saas ay tahay sheekada isas marayso ninkani cagajiid oo uu haayo oo ani markaan la hadlabo oo uun afkale ugu qancinayo qancisko oo qancina aan wax ka arkayn dhan kastana aan wax kasta ka tusay oo inuu qaldan yahay oo og yahay aragay dhaha iska sawir maanta maalna ahayn ayaad helaysaa oo dhaha abaalmarintaada iska sabar maxaan sabraa anigii isigi balan iyo axdi inoo taalo balantaas oo inaan 3 bilood gudaheed aan wadanka ku laabto si aan u tago calaashaanigiisa. maanta ana qof waxaan ahay waalidkeeda yani masruufto oo shaqayso asigana ima uu haya waalidka ma fahmo mushkil wixii ay u qoreeb helayaan mustaqbalka qofkan aan u rooraayo asigana hadda saas ani iiga cajiga habeen la hadla habeen ani oo ila hadlaynin oo quursanayo markaan ula hadlana oo idhaayo dhiman iska sabar waqtigiigu gabagabeeyo meeshan aan wax ka soo bixinin. ayadoo saas ay tahay oo balanti 3 biloodna bil ay cuntantay bil lama bil ay dhiman tahay waxaa dhacday 3 muddo anakoo bilka joogno balanteena ayaa waxaa dhacday in oo muddo 3 beri aan waayo telefoonkan oo iga dansado qadkiina oo iga xirto meel aan ka waxna aan waayo gabar oo aan isku fiicna muqdisho joogto markii aan wuxuu dhaho iyo qofkaas aan u baahanahay raqamkiisa aan siiyana haddii ay iyo wacdo aniga markaan wax iga qabo maayo
gabadhaas markay wacdo dhabuu siihaa markuu ogaada in aan usoo diray anaa soo gelaanu dhaho qadkiisa iska xiranaa ma soo gelaayo oo waa la joogo gabadhii haddana ku celi dhahaa maka qabanaayo haddana saas maahano maalinka saas aan ku baxay aan ku waayay beriyo kale haddana waa iga qaban maayo gabaraan u diray isla gabadha raqamkeedu u yaqaanaa maka qabanaayo ayadoo saas ay tahay oo telefoonkan oo saas gabadh ugu dhageysanayo anina oona iga rudinaynin qofkiina oona ii dhaweyn oona dhahaynin maxaasaan igugu gelaysa qof iga fogna yahay ina dhahooga ii imaawo yacni wax aqli gelaayan ayna meesha oolin ayaa maalin waxaa dhacday inuu telefoonka saas igugu dhageysanayo aan arkay aan intaan telefoon caadi ka wacay aan waxaan ku dhahay ahay qadka soo gal qadkiioo soo galay waan la sheekaystay si weyn mashquulaa ahay waxaan dhahay shaqaan u socda laakiin goobta shaqada ayaan kaa soo waca aan dhahay qadkina ha ka bixin ilaa amarkiisa qadkii wax ka baxo ila ekaaday waan iska baxay telefoonka waan baxay lacagan kusii shubtay daraadiisaan lacag kusii shubtay waxaan dukaana wax kasii gatay yani lacagta oo badaaqada ah waan ku shubtay waan wacay markii aan wacay qadku iga soo wacay xaafadan ka shaqeynaya shabaka iigu furneed qadkii iga soo wacay waxaan ku dhahay maxaasaan kuu gelana maxaa telefoonka iigu dhageysay markaasuu idhaa qadka maka bixine yani shabakadii ka dhaqaaqay camal waxaan dhahay soodadan u duubay hariina u qorqoray waxaan dhahay wax alla waxaa ii qabtana ii sheegtaan rabaa qaladii aan kaa galay waa ii jedaa maanta an nin iyagama masiirabis oo isdhihi maysid xabadaada nin kale shukaansataa aniga nin aan adiga ahaynaan dhahay ma aqaanaa ere maanta da itiraad xataa kuma rabaan ere dariiqa aan hadda jid waxaan yani hadda meelaan ka bilaaba xataa ma garanayaan dhahay laana maanta adigaan nin inuu jiro uma qabo adiga ahayn maanta jidadkana waa iga soo afxirtaan dhahay adigana waa kanaasaana bulol qof yani banooni ah igu dheeloosahan dhahay maxaa ilaahay maa ka cabsinayna maxaasaan dhan igu geleysa qofka bili aadanka haddii aan dan laga leenay roo loo sheegaan tarika 10 jeer ayaan aniga niyadeyda dhaawacuus ahaan dhahay aan kugu sabrooyaan dhahay ani maanta waxaan kaaga baahanaa wax alla wixii kula gudboon ama wax alla wixii kugu soo siiyaad anaa raali kaaga inaad ii soo gudbisid fariintan u qoray wuxuu raayay abaa iska shaqeyso qalbigaaga qeyr u sheeg wax kastana kheyr ku dhimaanay waxaana wax kasta kheyr ku dhimaan laakiin caawaan dhahay waxaan dhahay waxa ii soo cadaysan heli inaadan dan ii xaaje aadan iga lahayn oo iga sabar ah idii sidaan dhahay cawadan waxaan dhahay akhbaar guriga markaa imaad aan ka helay hadda mashquul ah hay ii shaqeyso wixii akhbaarna waa helaysaa waayahan ku dhahay waa soo bax shaqadii ii dhamaatay waa ismaac salaameyne waxaan dhahay muxuu xafta u socda camal waayo ugu dhantaa wadada ku soo jiray oo wuxuu ii soo qoray fariinta markuu ii soo qoray oo igu dhahayo yani qadar miyaha baayo iga raali noqo yani qaladaan kaa galay ayaantan 3 bil waan xanuunsanaay quraana igu socday yani mana kuu soo sheegin haddana waxaani walaashay tahay maanta qof matiid oo macnaha uu ilaabi karo maanta dhan kastana waa ka dhameystiran tahay dhan ka qaldan tahay ma arkin wax qalada ay geystan ma jirto laakiin aniga kama soo bixi kariyo yiri yani xaqaaga ma ka soo bixi kari inaan ku sirin waa ka ceebsaday gabar walaashay oo aan jeclahaa tahay maanta nasiib waa yani calaf yani isku yeelan qeyr maanta qof yani nasiib la waa ah uu yiri yani oo haday baan aan ku helo yiri laakiin ilama aanu in nasiibkaas oo uu sii rumoobaayo marka ani waxaan go'aansaday dhan kastaan u fiiriyay yani dhan kastaan ka eegay sheekadeena waxaan ii soo kormartay inaan walaalowno wallahi markuu ii sheegay indhaha dhan ilina iiga soo istaagay meel layga jiran garawaaye waxaa ii sii dheerad ani walaalahay habeenka uu qadka uu ka maqanya dadka oon isla noolnahay way ii dareemayaan haddii habeenka uu siga uu ii taagan yahayna yani kaala arag waa lay fahmaa habeenka uu qadka ii joogo yani oo ila hadloo waa lay dareemaa habeenka uu iga maqan yahayna waa lay ogyahay in wax iga qaldan yihiin mutacawidaan ku noqday ayadoo saas ay tahay waxaa isii raacday arrintii uu isoo bandhigay wuxuu ugu dhahay aniga walaashayaa tahay inaan ku qayaan ma jecli maantana ani waan jeclahay in xiriirkeena meel fiican noogu dhamaado laakiin qof ani mas'uuliyad qaadi karta ma ihi xaquuqdaadana ma kasoo bixi kari
in la isqiyaaman waa laga roon yahay, walaashayaana tahay, saasaan jeclaaday, maxaa ka dhihi lahayd? cirkaan dayo dhulkaan dayo cirkaan dayo dhulkaan dayo fariinyaana oo sii qorqor ninkii dhahoobo yani adiga walaalaha banahay maba ahan bani fariina u dira waa la joogay habeenkii haddana isla hadal waxaa dhaxaa kugu dhacay, maxay sidan u dhacday, saan maa go-aansatay, maxaa been iigu sheegtay? been kuuma sheegin oo shalaysan ku jeclaa waa kuu jeclaa, laakiin abaayo meel adi alla adaha ma jirto, laakiin aniga ayay si wax iga yihiin sida wax iga yihiin waxaa maanta xaqaaga ma gudi kari, waxaana shalay maxaa iigu sheegaysaan? wuxuu yiri shalay kuma sheegin, wax kasta way qoran yihiin. waxaan dhahay ma fi mushkila, laakiin waayey waxaan usii daba dhig waayey nafta waxaan ku sasabo ii sheegaan dhahay, maxaad ku sasabi karahaana nafsadeyda, maxaan ku sasabi karahaana? markaas wuxuu yiri baa ilaahay qalbigaaga ku celiyo, dhib ma lahaan dhahay, ilaahay sabar ha isiyaan aan ku sabro, waaba heestaa ayaa dee intaan aan adig ka daba suuxayn adigna ha igu meysanaysaan oo cawka sida randa qalbi jab igu ridaysaan dhahay, oo qalbigeygana aad jabinaysa. ayadoo saas ay tahay sheekadu wuxuu dhahay abaayoy hadda yani wax walbo way hagaagayaan, qalbigaagana khayr u sheeg, qalbiga khayr u sheeg, laakiin mid isu biyaan dhahay sheekadaas waxaan dhahay yani go-aan aa gaarto miyaan oo dhab ahaan dhahay mase yani lacagtaasaan jeclaha ka wada? wuxuu yiri weli si fiican go-aan ma gaar, laakiin taas aan jeclaaday, waxaan dhawaayay nafsadan taydan waxaan ku sasabo iisoo raadiyaan dhahay, qadkan ayaan ka haweynaa maalinka aan qadkaa waayaan dhahay, yani qalbigayga si kaloo noqonayaan dhahay, qadkaaga markaan arkina oo lantahay anoo kugu farxayaan arag, marka waxaan dhahay beliisaan dhahay qadkiyaan ka haweynaan dhahay, wax ka maqnaanin. waayo ugu dhahay habeenka adii 8 saac habeenimo kala tagnay, waagiyaa bari fariina oo qorqore oo isoo qoro wuxuu igu bedelay xabiibti xayaat shalay dhigi jiray walaashay igu bedelay, walaashay qaaliya mihmi kasii daran morar dilaaca igu sii dhaco qalbi jab, markaasna walaashay marka ay dheesana shalay xabiibti xayaat ay dheesay meedayaan dhahay xabiibti xayaat ay dhigi jirtaan dhahay, markaasoo ugu dhahay dembi waaye, markaasna shalay sababta adiga dhehaysan dhahay xayaati haddana maanta inay dembi tahay inay kuu sheegaan dhahay, shalay saas ay dheesana shalay dembiga maxaa iskaga celibaysaan dhahay, markaasoo ugu dhahay hadda kuley caadi waa dhib maa ka qabta walaashay haddii aan ku dhaho ma fi mushkilahaan dhahay, adiga wuxuu rabaayo waxaan dhahay maxaa talahaan dhahay waxaa ii heysaan akhbaara watan ku dhahay qalbiga waxaan ku sasaba keenay, markaas wuxuu dhahay baayo sidee jeceshuro dhan kastan kaa eego anigu kuu sheegay saasan jeclahaan ku dhahay, adigina wuxuu yiri hadaladaada weeri waa kusii doorka doomo maxaan soo biyaa, waxaan dhahay dhib ma lahaan dhahay ilaahay aa khayr keenayaan dhahay waa iska sabraan dhahay, laakiin qadkaanan dhahay iskaga jiraan dhahay ilmu soo hadlaan dhahay ilaahana raxmad keeni doonee maalinkaan saas dhahay saa u sheekaysan oo isku qorqoreyne habeenku wuxuu igu soo xijiyay oo marba laba kelmad kadib aan u gelinayo calaacal iyo sidoo yeeliye, habeenku wuxuu ii soo diray bishaaro abaayo sidaa jeceshaan ku yeela, waana kasoo laabtay, waan ka diiday waxaan ku dhahay naftada iyo cadaabinaan dhahay hana waxaan dhahay ha iska rifinaan dhahay, war waa isoo dhahdana warna waa kii noo horeeyaan dhahay, marka aan dhahayne wallaahi ma jecleen inaan dhaho laanna waan u jeclaa qofka waan jeclaa, laakiin asiga ka dhaba warkaas oo idhahaa laakiin ma ka dhabeynaayo, waxaan ku dhahay nafsadaada ha ii cajujuubinaan dhahay, naftaadana ha ii cadaabinaan dhahay, saa adiga jeceshahayne aanan kula jeclahaan dhamaanta kabacdi. wuxuu igu dhahay maya, wuu ii dhaarto wuxuu dhahay hoosteedana iga sii haddii aan khiyaano dambe kuu celsho yiri raalina noqo, laakiin mid ii sheeg uu yiri qalbigaaga maxaa galuu yiri ma jabiyo qalbigaaga mase abbaay wuu kaban yahay, waxaan dhahay wax walbay noqotaan dhahay kulli way dhacdaan dhahay mushkilada maxaa talahaan dhahay, wuxuu khalaas soo yiri kumana qiyaamayo yiri sheekadana sideen noogu socoto waayahaan dhahay waa sii sheekaysanay, sideetan ku sii sheekaysanay waxaa dhacdadana inuu haddana u keenyo isbedel kale haddana keena inuu iga aamusiyo anigoo sii war aan ka sugahayo, waxaan ku dhahay xaa ku dhacdane haddana qadkii telefoonka qadkii iga xirtay soo ma gelaya qadkii dadka dii aan u diro
wuxuu dhahaa anaa soo gelaayo mashquulaan ahay saanaan ahay waxaan dhahay maxaa kugu dhacan hadda meeno haddana ballameyn haddana hadda adiga maalinkii 13 waxuu ahay sanadka hadda lagu jiro bisha koowaad 13 October ma ahayd hadda kan lagu jiro oo isoo qoro ugu dhahay yacni qala soo hiri sheekadeena waxaan dhahay dhan kastaan ka maray soodadan u dhigay maxaa kugu dhacaan dhahay telefoon caadi aan ka wacay oo ila soo hadlay wuxuu yiri abaa runta maarata ma sabeen waxaan dhahay cawadaan runtaan rabahaana ii sheegtaan intan waala lahaan dhahay kaligaa waalo waa wareer aan lagu waashtan wanaag inaan kaligaa aan waashtaan dhahay oo dadkina aan ka yacni ka tilmaamnaa baan dhahay oo waxaad ii keentaan dhahay nafta hal mar ay go'daan laba mar ma go'daan dhahay wixii jira ii sheegaan dhahay walaalkay hatee markaasuu ugu dhahay gabarna waa dhashaan dhagoona kula lataan dhahay waana qabtaan haare saan hadii ii gelisaan dhahay birka maalan dhahay waa jida adiga furuusidaan oo faliyoosi oo ogsoon oo yiraabay kuumana dheelooyo laakiin doqonnimo ay heesay ii sabar waxaan dhahay sabarka ma fahmay intaan sabra ku soo gaarnay oo ku oo maanta waxaan wada wiri waa adiga wiri jaceelka maan aniga hadii aniga adiga wuxuu aniga san ku yeelay hadii adina yani saan yeelay sidii kala aasoo soo wiri saacan isma sii wadineen wiri abay daacada tahay daacadnimadana ku mooday iska sabar aan sabar maxmed hadda cawda waxaan dhahay arin tajirta ii sheegana waxa ahaantii iyo aamusneed wuxuu dhahay waxaan xumaana kuma qabo laakiin abaa waxaan rabaa inaan kala harno waxaan dhahay sawti camal mee laakiin wuxuu yiri intan ii soo sheegay wuxuu dhahay balan iyo axdi ka qaad inaad idhiin sidee wax u dhaceen oo yiri adan ku sheego arintan soo korartay waxaan eri balan iyo axdi waan dhahay inaan ka soo hadeen xaasan igu soo basan aan ku dheen laana waxaan buu dhahayn wiligiis uu dhigi jiray qalaas sheekadina noo kala xir sidee hadda ugu xumaada tii camalan ka dhigaa waxaan balan iyo axdi waa inaan ka soo galiyeen eri ii soo sheeg wuxuu ugu dhahay abaayo ani qofan ku dheeli kara matid gabar walaashay ayaa tahay inaan ku qayaanana ma jecli khalaas sheekadu waxay noo bedel maalinka 13 bisha koowaad 2019 maalinkii ahayd wiilaahay khalaas sheekadan meesha noo weer habeen wanaagsan igu soo gabagabay laana wuxuu bi dhahay si wax u dhicin hay dhihin maxasan igu soo bisanahay dhihin waana ku sheega hadalna ha ka kiisan khalaas meelo igu xiray sidoo meesha igu xiray oo xiranahay hadda muddo adiga toon bisha koowaad bisha labaad hadda lagu jira bisha koowaad aan kala hirno 13deeda 2019 marka waa kaasa talan waa idinka baahanahay sheekadii intaas ku agtahay inuu soo duceeyo inuu ilaahay qalbigayga ii celiyo